siyaasadda maanta meel umay wareegin hawlihan bay la tahay ajiro shanta sano markaas la dhamaysan taada gafanaha waa nasiib wastil waa istaagi kartaa waxa dhimay laakiin tilmaamta hadda aad meeshan ku bixisay tilmaam xun baad bixisay adiga waxaa lagaa rabaa aniga gafana u taaganahay idhisa laakiin intay iga jirtaa iyo tala samaan wadnaa sheekada isma qaadan karto gafana wax la sii daan kara miya tartanka uu badan yahay علي بروني الله صوص سعودة شيليا صوص سعودة ضد بدر الله يكون سوى جراجي لو تعبيه وصوص سعودة هاجر نكتيس لكني واحنا وشكت واحنا وقوا شاتك الله وقوا فرت شاتك أسيب هذا صوص سعودة ترتك وقوف ولا هاجر فريبات لكن واحد أنت الله الله ويس نجدا ما تسنتي قبل شرفت له ماشي المانت وحاشينا ممكن هاجر مكو يستاج أيوة عبصدور laakiin tii hajir way dambaysaa waxaan maanta u sheegayaa dhalintan waxaan arkayaa maamooyin sidii naloo sheegay oo maanta naftooda college-ka soo galeen siday ayaga naftooda ay farsamooyinkan ku bartaan farsamooyinkan waa farsamooyinka qaaliga ah aniga waxaan u xil saaranahay county assembly-ga qaybta education-ka iyo farsamooyinkan u xil saaranahay maanta waxaan idiin sheegaynaa annaga iyo wasiirka educationka iyo chief of saagi arrimaha waa isku dambeynaa laakiin nin bay soo direen maanta arrimahan waa arrimo qaali ah maanta waxaa la leeyahay waxaan u sheegaynaa UNHCR Hassan Gumo UNHCR intay soo istaagtay waxay noo sheegtay farsamooyinka ka soo baxayaan meelahan qaxootiga kale inay qaato horta aad baa taa ugu qaldantii qaxootiga markii ma la arkay deegaanka ayaa qaxootiga lahayd dhalintan haddii waxbarasho ay aad ugu soo wada imaan karaan waa inagina fursadahan Canada dhalintan Atlantic aadayso oo Canada aadayso inaad ka bilowdiin meeshan aan joogno yar arrinta dhalinta loo qaadayo waxbarashada dadka waxbarta qaxootiga loo qaadayo midda anaga ma doonin haddana mas'uuliin waxaan rabnaa annagaba in shaarkayna aan ku leenahay as a host community dadkaas dibadaha u qaaday dhalinta farsamada barata qaasatan hadda Canada waa la furayaa farsamooyinka waxaan u sheegaynaa UNHCR farsamooyinka dhalinta barata haddii loo qaadi waayo sida hadda Canada dadkan qaxootiga aan diiwaan aan soo magangeliyo aan siinay kale la siinay waxaan doonaynaa naftaan dhalinyartayna gabdhaha iyo wiilasha inay ka faa'iideystaan arrintaasna waan dabagelaynaa asaga noo sheegay siday tahay baan u raacaynaa ilaa meesha u dambaysa midda kale waxaan idiin sheegaynaa macallimiinta naloo sheegay oo meesha wax ka baranayso gafanahan ku noqonaynaa macallimiintaasay noo sheegtay nadiifa macallimiinta waan ula tegaynaa gafanaha in naloo qoro gabdhaha iyo wiilasha inta wax ka baranayaan insha Allah midda kale waxaan idiin sheegayaa maanta qalin wax lagu qoro way soo dhamaatay farsamada gacanta iyo meel walba gashay hada DC-ga soo sheegay bana DC bana Opel I want you to recommend that gentleman ambaye amekutengenezea kazi ambaye hajalipwa you give him a recommendation and hiyo recommendation iende kwa partners na NGOs hiyo jamaa akigraduate kazi ya kwanza electricity apewe yeye that is what we are giving instruction to these partners. I want to also talk to these partners and UNHCR. Whenever you are inviting county government, you also supposed to invite the legislators. The legislators are very important in such areas. We are supposed to work hand in hand together with you partners. You only invite chief officers and directors and waziris. You also supposed to invite the legislators who can also address the rightful. In fact, these are the part of things that we can also legislate in the assembly. It is not only the chairman, we are the committee of that part and we are supposed to be involved any invitation in such scenario. Thank you very much. Siyasan hadda marka mugti waana loo bilaabay bash. Waana loo bilaabay. Nin hajir rabo markuu anaga inaan ka dambeeyno microphone xogaa waswaas baa yar galayo. Siyaasadda maanta meel umay wareegin hawlihan bay la tahay annaga siyaasi waan nahay waqtigeeda ma dhamaan ajiro shanta sano markaas la dhamaysan
هذا قفناها ونصيب وستيل واستاي كرتا وحده مر لكن تلمام تهدأ ميشن كوب حسي تلمام حنبا بحسي taas waxay ku tusaysaa adig gafanaan u taaganahay bahashana intay naga jirta aad leedahay isma waqaadan karto adiga waxaa lagaa rabaa aniga gafanaan u taaganahay idhisa laakiin intay iga jirtaa iyo tala samaan wadnaa sheekada isma qaadan karto annaga min siyaasiga inkastoo la isdhegeysanayo maanta gafanaha munaasabka oo soo socdo oo imaana baashan horta inay macaanta wada aragtay somo gafana wax la sii daan kara miya tartanka wuu badan yahay xali buruun laha soo socda shiidiya soo socda dad badan oo leeka kusoo jiraa jirta doctor cabey waa soo socda haajir naftiisa laakiin waxna wuu sheegtay waxna wuu qabaa shaatiga lagu qabo horta shaatiga siib taada soo sheego tartanka waa ku foodahay jirta fulibaad laakiin waxaan inta aad noo laabayso nagada annaga awoodda aan gafananimo ku qaadano waa qabnaa wayna socon doontaa waxaan u malayn aboo baa iga dambeyn doonay markuu aboo gafanahan wada socon intahaynaba isku gafanaan laakiin haajir isaga hadduu gafanaan rabo annagu muna soo raaci doona annaga ka tira badan haajiro waxaan ku leenahay maanta sahankaada sahankayna ka fiicane sahankayna soo raac sahan meel kale kaama jiro sahan intuu kaa jiraa dowladda waad aragtaa gafanimo waxayta waad aragtaa waa la sii daan kara ma aho marka waxaad ogaanaysaa annagaa kaa sahan fiican maante 2027 wadda fiican baan ku tusaynaaye walaal haywiga soo raac asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu